بسم الله الرحمن الرحيم. انت اللي متلا ونحرسته انت حنوسن الى عافيسو الى انت حنوسن الى عافيو مراد الى وسهلا. وان تاريخ waxay ku beegan tahay 22 bishii 11 dulqayd 1440 ku beegan sagaalkii bishii 5 2026 Iiraan ayaa ka digtay in haddii la weeraro maraakiibteeda shidaalka ama kuwa ganacsiga uu gobolka hulci doono. ciidamada ilaalada gacanka ayaa sheegay in daroonkooda iyo qalabkooda uu diyaar yahay ayna sugayaan amar kaliya. Si kastaba ha ahaatee maraakiibta Mareykanka iyo Iiraan ayaa isku dhacay israsaasiyeen marinka Hormuz. dhanka kale madaxweynaha Donald Trump ayaa sheegay inuu rajeynayo inay fuliso Iiraan qorshihiisa oo ahaa 3 inay joojiso uraniumka, in uu Mareykanka cunaqabateynta yareeyo, in Iiraan ay marinka biyoodka Hormuz ay furto. dhanka kale Pakistan iyo Iiraan Pakistan iyo Qatar ayaa wada dhexdhexaadin in lagu heshiisiyo Mareykanka iyo Iiraan. dhanka kale Donald Trump ayaa u ballan qaaday ra'iisul wasaaraha Yahuudda Benjamin Netanyahu in uu ka tanaasuleynin uraniumka Iiraan. dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha Qatar ee ka wada hadleen in gobolka bariga dhexe lagu dabaalo heshiis. dhanka kale ayaa waxaa la sheegayaa in cabsi ay jirto haddii wadahadalladan ay fashilmaan ay dhici karaan dagaal. xaaladda bariga dhexe ma sahlano. warkaan haddana soo gaaray wixii oo war oo ku saabsan wayna warkeena kale. Asalaamu calaykum nabadiina.